بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن إذن أهانتين با waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni kulanka Shibli aad inooga barateen toddobaad walbahaadaha iyo kale barnaamijkan ayaa had iyo jeer waxaan ku soo qaadanaa ama aan ku la fagurnaa su'aalo iyo jawaabo diini ah su'aalaha aad inoo soo dirtaana si waafi uga jawaaba sheekheena weyn Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli xafidullah daawada hadii aad doonayso inaad barnaamijka nagala qayb qaadato waxaad su'aashaada ku soo diri kartaa ciwaanka kashaashada idinkaga muuqda kulanka Shibli @somalichannel.tv ama barta inuu Facebook kulena waa kulanka Shibli iyo Somali Channel barnaamijkana waa xalqadii 57 السلام عليكم شيخ فليل وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم adiga iyo sheekha waan idin salaamay salaan kadib magaalada aan joogo dhowr qaab ayaa loo kala tukadaa aniga duhurka waxaan tukadaa 5 saac 56 daqiiqo casirkana waxaan tukadaa 6 saac maghribkana waxaan tukadaa 7 saac iyo 20 sida daraadeed masjidka waxaa jimcaha lagu tukadaa 8 saac iyo bar ee jimcaha sideen ka yeelaa anigoo maghrib tukaday jimcana ma tukan karaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد طبعا قفك السائل كي مسو شيغن احمده ودنك و جوغا ما شيغن سقاب كان حسابته وقتيدا او حسابي لولا قيمايو انه قاب صحيه سدا قران عصرك يا ظهرك 4 دقيقه و دحيس دورك يا مغرب عصرك يا مغرب كان هل ساعه 20 دقيقه و دحيس سدا موقت hadii la yiraahdo duhur iyo maghrib maxaa u dhaxeeya hal saac iyo 24 daqiiqo marka laba mid weeye wadankani wadan maalin iyo habeen leh qorraxi soo baxdo qorraxina dhacda inuu yahay iyo wadan ama maalin ama habeen isku bixisa inuu yahay haduu wadanku wadan habeen iyo maalin la yahay salaadaha subaxa duhurka casarka iyo maghribka waqtigooda la ilaalinaya kaliya waxay culimadu ka hadlaan salaada cishaha duruufaha marka maalintu inta dheeraata habeenku yaraado salaada subaxna soo hormarto in ay duruufta iyo mashaqada iyo dhibkaasi saamaxayso in maghribka iyo cishaha la jamciyo la israaciyo haddii wadanka markay tahayna wadamada intaan aqaanay maalintu dheeraato ama gaabatee winterka iyo qaboobaha noqotay qorraxda iyo habeenkii leh sidaas oo kale waa qaad ay u dhaxaysa anigu ma garanayo way 4 daqiiqo casar iyo duhur u dhaxaynayso haddii uu yahay wadanku ka hadlayo ama xaaladdu ka hadlayo xaalad isku bixis habeen ama isku bixis maalin ayna qorraxiba dhacaynin ama qorraxiba soo baxaynin وطبعا meelaha qaarkood ka dhici karta iyadana tilmaanu nabiga nu bixiyay baa jira sallallahu alayhi wa sallam oo ka dhalatay qisada xadiidka dajaal uu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam wuxuu iman doonaa dajaal yawmun kasana maalintii u horeysa 12 bilood bay qorraxdu soo jeedaysaa inay dhacaynin maalinka labaad ee xiga markay dhacday soo baxdana 30 beri ka shahrin bay soo jeedaysaa maalinka saddexaadna ka usbuucin toddobaad bay soo jeedaysaa kadibna caadi bay ku soo noqonaysaa soo wareega qorraxda 12 bilood oo dharaara iyo 30 beri oo wada dharaara iyo 7 maalmood oo wada dharaara saxaabadu waxay weydiiyeen rasuulka Ilaahay salaadiisa la yeelaa marka leen habeenka soo gelitaankiisa iyo waqtiga isbedelkiisa salaadaha ku xidhnaa wuxuu yiri uqduru laha uqadara uqiyaasa bimaana intii ku dambeysay ee qorraxdu dhacaysay soona baxaysay waqtiga subax tukan jirteen subax tukada waqtiga duhur tukan jirteen duhur tukada waqtigii casar waqtigii maghrib waqtigii cisha taasina wadanku hadii uu noqdo wadan aan qorraxi soo bixin waqti muddo intii ama aanay dhicin beentii muddo waxa la qiyaasaya salaadaha la qiyaasaya kadib culimadu waxay isku qabtaan ma wadankan waqtiga ugu dambeysay waqti saxan baa lagu qiyaasayaa mise wadan muslim oo noloshiisa nolol maalmeedka qorraxda iyo dhicitaanku caadi tahay wadanka ugu dhow baa lagu qiyaasayaa mise ummul qura oo Makkah baa lagu jaangooynayaa lagu qiyaasayaa saddex qowl ay culimadu leeyihiin way haday qiyaas iyo jaangooyn tahay qofku isagu iskama jaangoosan karo dadka muslimka iyo jamaacadu ku gowracan yahay waqtigay u jaangooyaan oo ku jaango'an saddexda mid kamida
midkay ahlulcilmiga iyo culummada joogtaay ikhtiyaarkooda ay doortaan bayna dadweynuhuna tabac u yihiin oo fasaluu ahla dikri bay noqonayaan labadaba dee waa lagu jaangoyn karaa marka saaxiibku hadduu waddanka sheegana dee waddanka xogtiisa waxaa dhici kari lahayd aan wax ka garanayno ama cid culumo oon garanayno ama aan ku ognahay aan dhihi lahayn ciddaas oon kugu ixaalaynee sheekh hebel iyo sheekh hebel baa jooge raggaa culimmadaa weydii ama iyaga weydiiyo waxay ku dhahaan qaado laakiin haddii ay tahay waqti isku bixis ah oo habeen iyo maalin aan kala lahayn midkay dooniba ha noqotee dee sidan salaaduhu ma ahaan jirin oo casar iyo duhur 4 daqiiqo uma dhexayn jirin waqtigii caadiga ahayd marka waxaan dhihi lahaa saa'ilku sida ay muuqato xisaabtaana waxbaa igala wareersan dadka muslimka ee jamaacada iyo maraakista masjidkooda meesha jooga say salaada u jaangoosteen ha ula jaangoosto iyagana hala tukado billahi tawfiiq assalaamu calaykum sheekh dukaan aan ka shaqeeyo wax xaaraam ah laguma gado sida doonfaarka iyo qamriga laakiin bisha 12aad oo kaliya baa lagu gadaa qalabka Christmaska sida geedka Christmaska iyo sanamyo yaryar ee diinta islaamku maxay ka qabtaa alxamdulillah dee xilligaa waxaa lagu gadayo aduu inaad ku gadda kuma bannaana marka waxaan kula talin lahaa ninkaasi inuu fasax sanadeedkiisa xilligaa ku aadisto oo iyagu hadday gadayaan iyo haddaynan gadaynin iyaga ay u taallo haddii isagu inta uu joogo wax xaaraana uusan gadaynin shaqadu ka shaqeeyana waa xalaal wuxuu ka qaatana waa xalaal laakiin geedka kristanka iyo asnaam inuu gado uma baanaana ama bil ha noqoto ama maalmaha noqoto iyo qof muslima yahay iyagu muslimada yihiin hawaaniyo wacdiga ha u sheego oo ilaahay ka baqa ha la yiraahdo isagana laba gooraba uma banaanee ha ka xidaaraysto oo meel kale ha ka aado ama xilliyadaaba fasaxiisa ha ku aadisto billahi tawfiiq waan idin salaami adiga iyo sheekha walaal sheekha ii weydii su'aashan oo ah ilma ayaan iskuul geeyaa waana ka soo celiyaa laakiin hooyada dhashay ilmaha waxay igu tiri anaa iskuulka geenayo kana soo celinayo laakiin dawladda lacagta aniga ayay ii soo dirtaa hooyadana waxay rabtaa inaan haaf ka siiyo lacagta dawladdana ma oga inaan hooyadaas lacagta haaf ka siiyo shaqadaas dambi miyay igu tahay sababtoo ah aniga ma wado ilmahaas alxamdulillah axmed shaqo dhaqanka yurub buu ka jiraa keliyana kuma aha ilmo iskuul la geeyo ilmo iyo ama dad waaweyn oo loo shaqeeyaa ka mida in la geeyo codsi ah kama shaqayn kara anugu ama awooddeeda kuma filli hawshan inaan qabto dabcan qofkii caawin buu mudanayaa caawintii qofka lagu shaqaaleeyey qofkani qof isagu dakhli iyo dhaqaale iyo income ka weyn leh hadduusan ahayn qofkaa dowladdaa shaqo siinaysa qofkii iska joog inta la yiraahdo in lacagtiina la qaybsado waa dhaqan ka jira Yurub meelo kamida waana shaqo iyo dhaqan xaaraan way waa marka koobaadee hawlaad qaban karto baad ku dalbanaysaa inaadan qaban karin adiga aba hadda qabanayaba inaad qaban kartana waxa cadeyn ah inaad hadda qabanayso waa mid labaadee qofkani wuxuu lacag ku qaadanayaa shaqo uunan qaban labadoodu waxay heshiis ku yihiin khiyaano iyo mardabay heshiis ku yihiin wax isdaba maris waxa hadalka ka muuqday la sheegayana adiguna shaqaba ha qabanin iska jiif yaan lagu ogaanin laakiin inaad iska jiifto aniguna shaqadii baan qaban yaan la ogaanin shaqada inaan qabto lacagta kugu soo dhacdana adna magacaaga ku timid anna shaqadii baan qabtay inoo kala qaybi marka musuqmaasuq iyo mardabada meherad in laga dhigta maaha risiqa inta xalaasha ilaahay ku barakeeyo ku anfacaysa in xaaraan oo baraka lahayn wax kasta haday badato wax ma tarto dadka waxaan dhihi lahaa idinkooba dhul gaalo dhib badan jooga oo intaasoo mixna idinku furan tahay haddana haddaad xaaraan cun ku sii dartaan mixnada iyo imtixaanka iyo balada idinku sii badanaysa gargaarka ilaahay idin gargaaraya idin kaalmeynaya un baa meesha ka baxay oo yaraanaya tanna cidi kuma taajirto cidina sidan kuma taajirto Soomaalidu waxay dhihi jireen waag hore iimaan Allah uur buuxiya wixii ilaahay ku iimaan qabto unbaa uurtaadii calooshaada buuxin laakiin xoolo badanoodan iimaan ku qabin
iimaan beel baa laga qaadaa intaad bismillaahi tiraahdaan wixii ilaahay idin xalaaleeyeena cuna si hadday cuntadiinnu xalaal noqoto ducawadiinni iyo ducadiinni iyo allabariga naftiinni iyo ilmihiinna meesha khatarteed joogtaan ilaahay waa aqbalo laakiin idinkana xaaraan haddaa cuntaan oo ducada allabariga in idinka aqbala albaabkii iska xidhaan meeshuna meeshan fitanka iyo balaayada badan ay tahay dee ilaahay subxana wa tacaala nasrigiisii iyo ducaduu ka aqbali lahaana albaab iska saar aafadii kalena ha kugu fakata akhrana dembi ha kugu dheeraado nasiib darro weeye billahi towfiiq sheekh waxaan ku weydiinayaa su-aal ku saabsan salaada marka aan salaada xidho shaydaanka ma iska naari karaa bisinka ka hore sidoo kale ragcad walba ma ku bilaabi karaa ma waajiba mise waa sunno salaada saameyn intay leega iyo ku yeelanaysaa haddii la iska daayo alxamdulilah intaan ogahay axmedow labaduba khilaaf badani kama jiro culimmada agtooda ragcadda u horeysa in bisinka ka hor shaydaanka la yska naaro inay sunno tahay oy wanaagsan tahay ajirna leedahay nabiguna saxaabada baray sala allahu caleyh ali wasalam daahirka qur-aankuna sidaa tusayo intaan ogay masaladaa khilaaf kama jiro waxaa labadaasan khilaaf ka jirin intaan ogahay ragcadaha dambe inaynan waajib ahayn inaad acuudu billaahida soo celcelisa mar kastaba laakiin culimmadu qodobka ay isku qabteen waxay tahay tan hore nabigaa laga soo gaaray calayhi salaam nabigaa dadka baray qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaytaani arajiim bisinkana waxaad bilaabaysaa waa qur-aan ragcadaha dambe ma sunna mise ma aha weeye intaan xasuusto waxay culimmadu isku qabteen fuqahadu intaan garana xasuusta waxay u badan yihiin inaanay sunno ahayn iyagoo ku salaynaya axaadiidtii nabigu dadka uu baray sala allahu caleyh ali wasalam ragcadda hore mooyeen inta kale wax sii sheegay ma jiro laakiin fuqahadiina shaaficiyada raxmat ullaahi calayhim jamiican ayaa waxay qabaan ragcad walba inay sunno tahay maadaama ragcad walba faatixa lagu bilaabayo faatixaduna qur-aan ay tahay aayadda qur-aankuna ay tiri faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi waxaa la isku raacsan yahay intaan ogahay taqdiirka faidaa qara'ta alqur'aana ay faidaa aradta haddaad doonto qur-aan inaad akhrido acuudu billaahida ka horreysii marka in ragcad walba faatixada la bilaabayo sidii mid cusub laga dhigo iyo tii hore maadaama salaadu ay wax xidhiiro taho inaan kala asaxaynin sidii qiraa'a xidhiidha laga dhigo labada arrimood bay u kala khuduucayaan aayaddu ma kala qaadin salaad gudaheeda iyo dibaddeeda ragcad hore iyo ragcaddamba ma kala qaadin laakiin sunnadu ma khasisaysaa mise istixbaabkii baaqi buu ahaanayaa intaasaa la isku hayaa waxaan rajaynayaa haddaad ragcad walba dhahda dhib ma laha haddaad ragcadaha dambe iska daysana dhib ma laha wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum sheekh waxaan guri kula noolahay gabdho shiico ah markii aan bannaanka ka imaado ama ay ka yimaadaan waxay igu yidhaahdeen assalaamu calaykum anna waxaan dhahaa wacalaykum salaam dib ayaan waxaan ka maqlay in shiicadu aysan muslim ahayn marka ma dembi ayaa iga soo gaaraya salaanta aan uga ridiyey sidii qof muslim ah maxayse tahay jawaabta la siinayo qofka shiicada ah alxamdulilah axmed waxaan filayaa ereygan ah shiicadu muslim ma ahee sidaa u duuduuban sax maaha waa khalad shiicadu innaga soomaali baa noo shiico ma naqaan wax ay tahayna garan mayno intii dibadahan loo soo baxay iyo dadkii soomaalida ee reer kenya ahaa ee gaar ahaan koostiga iyo xeebaha tagay ama caasimadaha joogay baa shiico wax ka ararkay waliba kuwa xeebta mooyin inta kale xataa caasimadaha jooga shiico badan ma arkaan shiicadu waa ummad fara badan qayb waa la isku raacsan yahay intaan ogahay muslim inay yihiin fi jumla duuduub ahaan qofkii gaar isagu wax ku dhaca dee dadkaa sunniga ay la mid yihiin nimanka shiicada zaydiyada la yidhaahdo waxaan ka fogeyn calaa asaxi alaqwaali nimanka jacfariyada ama raafidada mithnaa cashariyada la yidhahda caamadooda iyo shacab weynahoodaas muslimkana ahee ashahaadanaya salaadahana tukanaya cilmi iyo diin iyo kutubay akhriyeenna ayna jirin kuwaasina iska caamada sunniyiintaee marar badan kufri iyo shirki ku dhaca bay la mid yihiin iyo bidca ku dhaca
waxay leeyihiin shiicadu tawaa'if iyo kooxo inta aan ogahay la isku raacsan yahay quruun dheer inayna muslin ahayn kaab ayna muslin ahayn waxaa ka mid ah dursiyiinta ka mid ah waxaa ka mid ah nimankan la yiraahdo nusayriyada hadda Syria nimanka haysto oo kaleeta baa ka mid ah waxaa ka mid ah qaybahan bahaa'iyada iyo baabiyada ka mid ah waxaa ka mid ah qaybahan kale ismaaciiliyada agakhaanka iyo baharada ka mid ah dee qofkani ma soo cadaynin shiicadu kuwa ay yihiin saa darteed ereyga shiicadu muslin ma aha ereygaa khalad wey cidda u fatwootay ee tiri shiica muslin ma ahana ama iyadaa khalad fatwootay ama qofkay soo tabiyey baa khalad u qaatay duuduubkaas maaha طبعا gaar ahaan dunida muslimkeena hadda inaga shiica haddii la itlaaqo tawaa'ifta dursiyada iyo nusayriyada iyo aad uguma dhacdo kuwan kale itnaa cashariyada iyo zaydiyada unbaa aad u soo degdega dihniga iyo fahamka qofka waayo iyagaa meelo muhiimana ku yaala dowladana lahaa ama shucuub badan ahaa dhaqdhaqaaqa isbedelka siyaasadeed ee dhacayana saameyn ku leh dadka dhagahooda in badan ay maqlayaan saa darteed gabadha waxaan dhihi lahaa dee kadba qaybta yihiin bay ku xiran tahay hadday gabdho iska yihiin iska shacabka iska caamada ah oo ama shiicadan itnaa cashariyada ee hadda ciraaq iyo iiraan iyo haysatay ilaa kuwan lubnaan ee xisbullaahi u badan iyo ah ama kuwan zaydiyada ee yaman iyo ah hadday yihiin waa shacabka caamada ee muslimiinta ee assalaamu calaykum iyo wacalaykum assalaam baa idinka dhexaysa dee agakhaan iyo bahora iyo hadday yihiinna assalaamu calaykum hadday ku dhahaan waa calaykum baad dhihi aduu laakiin assalaamu calaykum dhihi maysido sideedaba qof aan muslin ahayn assalaamu calaykum laguma bilaabo hadduu isagoo assalaamu calaykum ku yidhaahdana waxaa aslamka nabadgelyada roona wacalaykum adigana inaad dhahdo wabillahi towfiiq waa tahay jazaakum allahu khayr waxaan weydiinayaa shiiqa waxaan akhristaa 99ka magacay alle ma akhrisan karaa marka aanan daahirka ahayn jazaakum allahu khayr alxamdulilah axmedow laba arrimood su-aashani horta markii horreysayna soo marta maaha si mararka hore baan ku baraarujinay waxaan leenahay asmaada ilaahay akhriskoodu sida qur-aanka daahirkiisu ina baray waa ilaahay in lagu baryo dhinaca kalena macnaha ay faa'iideynayaan inta la dhuuxo ay noloshooda saameyn ku yeelato ilaahay in lagu baryo qur-aanka ina baro walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay baa asmaa wanaagsan leh ku barya asmaada ilaahay haddaba in lagu baryo ilaahay ghafaarka ahayow ii dembi dhaaf ilaahayga raxiimka ahayow ii naxariiso ilaahaygiisa ahayow saa iyeel sifaadkiisu weeye asmaadiisu waxay keenayaan ilaahay subxaanahu watacaala waxay tilmaamayaan awoodiisa cilmigiisa ilaahayga cilmiga badnaayo cilmiga i baro ii sahla ilaahayga dulqaadka badnaayo ii dulqaado iska kay cafi inaad asmaadiisa gogol xaadh uga dhigato sida nabiguba samayn jiray sal ly slam qur-aankuna ina baray taas man axsaaha dakhala aljannataday soo gelaysaa waxaa kaloo soo gelaya man axsaaha macaanidii inaad barato ilahi subxaana watacaala hadduu ghafuur yahay dembi dhaaf badan ee dembi dhaafkii weydiisato hase ahaatee ilaahay ghafuur iyo raxiim weeye aadan ku kadsoominoo aada barbar dhigto ilaahay shadiid ulciqaab inuu yahay labadaa markaa isbarbar dhigto inaad bayna alrajaa'i waalkhawfi naxariistana rajayso cadaabkiisana ka baqdo xilmigiisa iyo dulqaadkiisana kugu cafiyana rajadaadu aanay ka dhammaanin ilaahay suu u ciqaabay iyo cuquubadiisu inay adag tahayna aynan kadan ka nabadgelinoodan isdhihin adiga laguma cadaabayo balaayo kuguma dhacayso oo laguma ciqaabaya akhriya adduun midna aadan dhihin qaabkaasoo kale inay saameyn noloshaada u yeeshato sidaa la rabaa dhinaca kale ilaahay asmaadiisa markaad barato magacyee macnaheeda ilaahay weynankiisa awoodiisa ilahi subxana watacaala suu u mudan yahay in laga cabsado suu in la ateeca u mudan yahayna guud ahaan noloshaada saameyn ay ku yeelato way asalku su-aasha gabadhu ay qabtay oo anoon daahirayn ma akhrisan karaa haa qur-aan maaha qur-aanka khilaaf iyo war badan ku jira asaan marar badan soo marka ka soo hadalle iyada waad akhrisan kartaa tahaaro sharti ma wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waan idin salaamay adiga iyo sheekh shibli islaan kadib waxaa jirto shirkad cadaan ah oo marka aad ka mid noqonayso waxaad bixinaysaa 4,500 crown una dhigantaa $700 waxaadna samaynaysaa 5 qof shirkadda ka mid noqoto welibana bixiso intaan kor ku soo xusay waxaad kaloo keenaysaa 5 kale qof iyaguna qaata sim card telephone kaliyanti oo shirkadu leedahay
waxaad helaysaa markaa intaad keento bishii $900 waxaan arkay dad galaya oo lacagta qaadanaya hawshaasi maxay diinta islaamku ka qabtaa waa Cusmaan Daahir oo Norway jooga alxamdulilah axmed su'aashani marar badan bay culimadu ka hadlaano waxaan network marketing ka yiraahdaan ama taswiiq shabakiya haramiga la yiraahdo ama pyramid ka loo yaqaano intaan ogahay anigu aan garanayo asaxu aqwaali waxa weeye waa ganacsi xaraan weey gelitaankeeduna xaraan weey waana ganacsi ku salaysan asal ahaantiisu waxa laga faa'iideeyo xubinnimada ama membership nimada laga faa'iideeyo lacagta laga qaadanayay ku salaysan tahay ee maada la soo saarayo ama production ama intaaj ay soo saarayaan kuma salaysna sadarteed muddo markii la joogaba dhowr magac baa socdo suuqa ka baxa kuwa kala soo gala intaan xasuusto aan wax ka akhriyay dhowr iyo 80kii san qarnigii hore ama bilowyadii 80aadkii bay North America ka soo bilaabatay ilaa Yurub bay soo martay kadibna waqtiyadii dambe caalamul carabi iyo Afrika iyo Asia u soo gudubtay marka hore card la bixiyo membership kaliya laga ganacsan jiray kadib dawladuhu markay mamnuuceen loona aqoonsaday business inuu yahay tijaaro iyo ganacsi xeeladaysi iyo musuqmaasuq iyo khiyaano ku salaysan oo wax daacadnimo lahayn ama waxyaabaha business fraud ka yiraahdaan bangiga adduunka iyo kuwa lacagta iyana qoraal ka soo saareen maxkamado badan ka furmaan Ingiriis iyo Mareykan iyo wadamada ay jireen bay waxay bilaabeen wax cover ama ay qitaa oo isku qariyaan mar waxa lagu leeyahay qalab tacliin way mar waxa lagu leeyahay dawooyin baa lagu leeyahay harbalis iyo wax lamid ah daweyn cashaabta iyo dhirta mar waxa lagu leeyahay qalab electronic oo computer iyo wax lamid ah hadda telefoonna la sheegaya marba waxba la sheegaa kutub iyo qoraalo badan iyo rasaayil iyo daraasaad iyo fataawo badan bay culimadu leeyihiin marka la isku soo ururiyo daraasaadka la sameeyay boqolkiiba 6 baa faa'iido boqolkiiba 94 way khasaartaa wadanka Kenya joogno waqti dhaxdaas ah oo filayo 2009 meelaha miyay ku aadanayd lacag badan fara badan oo 30 bilyan asaas lagu dhacay rag wasiir ahaa iyo xaasaskooda qayb ka ah wadankan oo maxkamadooda iyo dacwadoodu socon jirtay dadkii sidaa sameeyayna dhowr qof oo shabakadan si taxmaysa labada u si kala farcamaysa midba laba si daba istaagaysa inta koro baa faa'iida inta kala khaasir damba khaasirin way sasdarteed waa business kamida jinsiga qamaarka qaybaha dilaalkana farq badan baa u dhaxeeya marar waxa jirtay aan si gaar ah uga hadlay culimo badan baa ka hadashay ninkan Dr. Norway yahay waxaan rajeynayay inuu ogaado Dr. Ali Maxamed Saalax oo waxaan ogaay isagana mar ka hadlay maalin dhaxdaas waxa warbaahinta ka akhrinayay culimo burcam yahay mise Hargeysa Soomaaliland ku kulantay oo daraasad dheer arrimahan ka sameeyeen culimo Soomaaliyeed iyagana shirkada meesha ka jiray ka soo saaray waxaan xaraan inay marka waxani waa business xaalad iyo musuqmaasuq iyo isdaba marin ku salaysan way waxaan dhilaa dadku waxay iska daayaan wax shaqo jiddi oo xalaal ah raadsadaan waxaan maadadan inaan ganacsi laga rabin iyada waxaad ka garanaysaa kambariyada markaad dadka intay weydiiso magacooda qaado website-yadooda ama internetkooda mowqicdooda aad gasho membership-ka la xayeysiiyaa oo la hormarinayaa production iyo maada la soo saaro suuq la gelinayo la hormarinayo la gadayo warshadii istorale ma jirto waxa ka ganacsiga marka production wax rasmiga laga ganacsanaya maaha shirkadu waxay ka ganacsanaysaa suuq geysaayo afar qof oo u timid kuma akaato billahi tawfiiq السلام عليكم شيخ آخري أدون بإلهي هاكو حفظيو صلاة فرالك أمركي عن ركوع أما عن سجود أفكا صومالي ما كدو عيسان كرا جزاكم الله خير الحمد لله أحد السؤال أنا مركو دنبي هوريسينا صومر تماها وحانري مرة هوريها هذا الدعاء إلهي لبريته قفكو وحافي عن إنه عربي برته لغة عربي أنا كدو عيستو حديث اللغة دي عربي وسنقرريني إنه دعايستنا ودون أيوه لغة وقرانيا بصومالي كليا ما هو كدو عيسان كرا فقهاء المسلمين تقار واهرة تصريحية وسيدا يجرينا واجران قار أصوشا مذهب كودو أي سيدا كينيسا سيدا فقهاء النشافعي ذا نويجران فقهاء النشافعي ذا كهلان قفكو أذكارتي صلاة
oo kow ataxiyaadkii ka yahay hadduu carabi ku akhriyi waayo inuu afka u garanayo ku akhriyi kara intuu ka baranayo haddiiba arkaantii salaadii markaad garan weyday luqad kale lagu akhriyayo luqad kaleoo dikrigii salaada lagu akhriyay salaadii inay jabinaynin cinda alxaaja wadaruuraad ka garatay halkaas waxaa la diidayna kalaamu naasi dad inaad la hadasho wey ood hebelow iyo dad kale la khitaabto ee ilaahay inaad barido ood la khitaabto carabina laguma diidin luqad cajamina laguma diidin dadka mar walba waxaan leenahay warducooyinka carabigana barta iyadana ku dadaala qofka laakiin dan ka maaran sii weyda xaaje iyo daruuro ay u geysaay way banaantahay billahi tawfiiq waa tahay daawadayaal wali waxaynu ku guda jirnaa qaybihii dhexe ee barnaamijkeennii kulanka shiblo aad inooga barateen toddobaad walbahaadaha iyo kale barnaamijka haddaad gadaal ka soo gaartay waxaad su-aashaada inoogu soo diri kartaa ciwaanka shaashada idinkaga muuqda kulanka shibli at somali channel tv ama barta aynu facebooka ku leenahay waa kulanka shibli at somali channel daawade ayna xasuusino barnaamijkana waa xalqadii 57 magacaygu waa Ismaaciil Xasan Xuseen waxaan ku noolahay magaalada Goday marka hore waxaan salaamayaa ilaahay ha xifdiya sheeqeena weyn Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli iyo daadiyaha barnaamijka su'aashaydu waxa ay tahay waxaan doonayaa waalidkay oo geeriyooday inaan ka sooma sideen uga sooma alxamdulillah horta marka hore waalidka oo geeriyooday haddii soom lagu lahaa waad ka soomi kartaa waa soom haddii lagu lahaa xadiidka Caaisha cumuumkiisina wuxuu tilmaamayaa nabigeena sallallahu alayhi wa sallam inuu yiri man maata alayhi siyaamun saama anhu waliyuhu qofkii geeriyooda isagoo soon lagu leeyahay dadkii xigtadiisa ahaa baa ka soomaya qofkii weligiisa ay u xigay baa ka soomaya haddii soon farada lagu lahaa oo soon ama nadar ha noqdo ama kafaara ha noqdo ama kii ramadaanka ha noqdo ama kii xaj iyo tamatuc iyo kaga laazimay ha noqdo soom waajiba haddii lagu lahaa oo isku dhintay waad ka soomi kartaa fidyana waad ka bixin kartaayo qof la afurinayana waad ka bixin kartaa seed uga soomaysaa de sidii loo soomaya laakiin waxaad u niyoonaysaa markaad maalintii niyoonaysa soomka baad niyada waxaad ku daraysaa inaad waalidkaa ka soomayso soonkii sidaas ahaa ee lagu lahaa baad niyada gelinaysaa adigana biriga iyo baarinimada ajir baad ka helaysaa isagana insha allahu tacaala soomkii lagu lahaa ee waajibkaa waa ka gudayaa wabillahi tawfiiq waan idin salaamay dhammaan shaqaalaha Somali Channel iyo Sheekh Shibli salaan kadib waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo dhibaato qoys haysato nin ayaa i qabo ilmo 5 ahna waan u hayaa ninka markii aan isguursanayna balwad ayuu lahaa uu kan jiray laakiin hadda ma tukado waxyaalo ka xariman diinta islaamka ayuu cabaa wax siin iyo caawintoona kuma haysano waxa ii dheer dil iyo aflagaada aan aad uga xumaado marka aan furiin doorbiday wuu i diiday inuu i furo su'aashaydu waxay tahay maxaad sheekhu igula talinaysaa maxayse diinta islaamku ka qabtaa inaan ku adkaysto inuu i furo alxamdulillah mid talo midna xukun labada wayaan malaynayaa waxa hadalka nuxu gubagabadiisa midda taladaade waxaan dhihi lahaa dadku ahal iyo raxim baa la leeyahay saad wuxuu sheeganaysana dee anuu inuu jira garan maayo inaad la tashato aad talageliso dhibtaada iyo waxaad tabanaysana gaadhsiiso adiga xigtada iyo dadkii isaga dhalay ee aabba iyo walaal u ahaa si ay kula ogaadaan ilaan ilmahan meesha aad dhashay reerkan buu ka mid yahay wixii dhib iyo xumaate ee timaadana iyagana way gaadhi oo way saamayn adigana aabba iyo walaal iyo dadkii halka ergada iyo dacwadaada inaad gaadhsiiso isagana uga ergooto aabba iyo walaal iyo hooyo iyo dadkii ahlaha aad tiraahdaa sida nama qabatee hanaga daayo ama dee ninkii waa kanee meel iga saara aad dhahdo taa waataan kugula talin lahaa ta labaad hadday jirto dhibta aad sheeganayso furitaan waa ku adkaysan kartaa ama isagu markaa ha ku furo ama adigu qaadi iyo maxkamad intaad tagtoo dacwoodato oo iyagu xaqiijiyaan waxaad sheegaysa inuu run yahay iyo in kale haddii aad xaq u yeelato markaa fasaq ay ku siiyaan wabillahi tawfiiq waa tahay ajri xasanaad alla soo koobi karaan allaha kaasiyo sida wanaagsan uga jawaabaysa su'aalaha soo weydiiyaan daawadayaasha assalaamu calaykum waa Cabdirasaaq Cali Xuseen oo jooga magaalada Berbera waxaan sheekha weydiinayaa in ay bannaan tahay arintan waxaa jira dad muslim oo ku dardaarma marka ay dhintaan in xubnaha jirkooda ugu muhiimsan la siiyo dadka u baahan oo xubnahoodu ku howlgabay alxamdulillah xubnaha in lagu deeqo
qofku marka uu dhinto wayaan filayaa horta Cabdirasaaq masaladan masala si cad u jiri jirtay ma ahayno horumarka caafimaad ma gaarsiisanayn qof dhintay inta xubin laga soo saaro in qof nool la geliyo u shaqayso waqti dhawoodee horumarka iyo aqoonta korodha ee caafimaad halka ay gaadhay bay timid in laga hadlo haddaba xubnahan la dardaarmay su'aasheenu waxaa weeye keliya qof dhintay ma u dardaarmi karaa dad muslima dee aqwaal dhowr ay culimmadu ka leeyihiin midka aniga raajixa ilaa majaamicda iyo golayaasha culimmadu ay isugu tagaan ee fiqiga kan raabitada iyo kayrkiiba hay-aadka kale cilmi golayaasha kale cilmigu intooda badan ay fatwoodeen inay bannaan tahay weeye inuu qofku dardaarmi karo laakiin wuxuu u dardaarmi karaa qof aan ahayn gaal xarbiya aan ahayn gaal dagaal idinka dhexeeyo dee in la badbaadiyaba ma mudna laakiin dadka muslimka ah iyo gaalka ama dimada iyo cahdigu idinka dhexeeyaan waa la gelin karaa qowlka sidaasaba aniga asaxul qowlayn ilaa ah laakiin aqwaal kale ay culimo leeyihiinna waa jiraan welina qoraalada iyo dooduhu way socdaan wabillahi towfiiq waa tahay su-aasha ugu dambeysay aan kusoo afmeerayna barnaamijkeena waan idin salaamay sheekh shibli iyo daadiyaha barnaamijka sheekh ilaahay dartiisa ayaan kuu jeclay su-aashaydu waxa ay tahay xaaskayga waxay tiraahdaa mar kasta waxaan ahay habaar qabto aniguna waan dareemay in ay habaar qabto tahay sababtoo ah markii aan guursanayay waan shaqaysan jiray waxyar markaan qabay kadib shaqadii ayaa laga fariisiyay marka su-aashaydu waxa ay tahay maahmaah Soomaali ayaa tiraahdo habaar qabto lalama hooydo qof habaar qaba ma la qabi karaa mise waan isaga tagaa jazaakumullahu khayr bismillah alxamdulilah horta mas'aladani waxaan filayaa waxay gelaysaa masaa'ilka sharcigeena loo yaqaano tatayurka ama tiyaarada baasaysi oo wuxuu baasaysta waxan asal ahaan qofku waxaan inuu dhibsado waa wax nafta hujuum ku soo dhaca wey muslimkuna ilaahay intuu tala saarto inuu iska difaaca loo baahan yahay nabigana waxaa ka sugan tiyaaratu shirkun si guud ahaan sharcigu waa diiday tiyaarada iyo baasaysigu shirki wey wamaa mina ilaa walaakina allaha yudhibuhu bitawakul baa qayb xadiidka ka mid ahayd qof innaga naga midoona ku dhicin ma jiro laakiin baa ilaahay tala saarashadu kaga tirtiraa qofka kaga tirtiraa intaasi ma hadalka ibnu mascuud baa radiyallahu anhu ardaa si rag culimo qabaan imaamu tirmidhi ka soo gurinaya can sheekhi imaam al-bukhari imaam al-bukharina uu cuskanaya hadal sheekhiisa Suleymaan ibn Harb inuu yiri mise sida daahirka riwaayaadka iyo turuqdu ay tahay iyadana waa marfuuc oo nabiga hadalka yiri waa qowlaan li ahli ilmi waxaan filayaa xasuustayda iyo daakiradaydu hadaynan ikhyaamin sheekh naasir rahimahu sheekh naasir maxamed naasir diin al-baari rahimahullahu ta'ala xadiidka dhan waa marfuuc in warajaxay isaga rag kale culimo ahba waxaan nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yiri ninkay tiyaarada iyo baasaysigu ka reebta wixii uu qabsan lahaa faqad ashraka طبعا شرك الأصغر ويا يرادان علماء كي أكبر كاي وينا معها iyadoo sida guud tahay laakiin haddana waxaa jirta axaadiis nooc tiyaarada lafdiga isticmaalaysa ama lafdiga shu'miga waxaad baasaysatood xumaysatood dib un kala kulanta ama ka filato tilmaamayso wax soo reebaysa mar xadiisaasna waa Bukhari iyo Muslim haddana dhaakiradaydu khiyaamin xadiis ibn Umar inuu haban umaleynaya الطيارة الشؤم في ثلاثة شؤمه وحا لبسدا يسدح بكجرا في الدار والمرأة والفرس غريغا يا هوانتا يا جاديد كفرسكا روايه قاركود waxaan ma shardi ay ku xidin kaanat الطيارة في شيء haday wax in كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس إنها هوان مالينيا وانا حسوس حديث سنن كاها وها لا عدوى ولا هامة ولا طيرة متشيران لكن إنما الطيرة رواية قاركودة هاي في الدار والمرأة والفرس
taasay culimmadu isku qabteen sida loo jamcinayo matiyaradii guud iyo shumigii guud ee sharcigu diiday baa saddexdan laga soo reebayaa oo caam iyo khaas weeye mise si kalaa loo jeedaa hadal dheer iyo dooda dheer iyo waxba bay leeyihiin laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid wuxuu rasuulka ilaahayow reer saanu nahay nabad baan qabnay caano iyo barwaaqan ku nooleen carruurtayadu way badnayd xoolahayaguna way badnaayeen deegaan cusub baan degnay intaan meeshaan deganay ka soo guuriyaan meel degnay xoolihiina waa naga baabeen carruurtiina waa nagaga baabaaday nabigu wuxuu ku yidhi daruuha damiimatan isaga guura buuri meel xun weeye isaga guura xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa in shu'migu uu ku tacalluqi karo dabcan wax walba waa qadarka ilaahay bilaa qadar ilaahi iyadu wax iyagu keligood saamayn iskale ma jiraan haddana inta asbaabtu ay ka mid noqon karto deegaan la degay ama qof dumarood guursatay ay noqon karto hadday sidaas noqoto ama ha noqoto asbaabtay ka mid noqon kartaa ama fira min almajduumi firaaraka min alasad tii la yidhi qofka juudaanka ka qaba ka carar saad libaaxa uga cararto iyadoo laa cadwa walaa tiyarata listallaal ma jira la yidhi saynan asbaab hadhow adiga waswaas iyo shaki iyo caqiide xuma kugu beerta u noqonin min baabi sadi daraa'ic ha noqoto ama asbaab bay ka mid noqon kartaa sidii taa loo fasiray ha noqotee hadday halkaasoo kala gaarto sida daartii nabigu kula taliya calayhi salaam isaga taga qofku waa samayn karaa waa tala mudan dee haddii aad guurkanba dhib iyo un ka bixilaadahay waxba laga yaabaa khayr inuusan idinku isugu jirine oo ilaahay bay calaf wanaagsan idiin kala qorine qalbigaaguna ku degi waayey dee sidaa nabiguba daarta ku yidhi dee inaad isaga tagtaay dhib ma laha haddii iimaankaaga iyo tawakulkaagu xoogaystana ood ilaahay ku kalsoonaato waxa ilahay usan qadarin uusan dhacayninna waswaaskana aad iska saari kartana dee reerkaagana aad iska dhaqatahay dhib ma laha wabillahi towfiiq guud ahaan daawadayaal inta ayaynu kusoo afmiraynaa barnaamijkeenii kulanka shibli oo aad inooga barateen toddobaad walba haadaha iyo kale ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa sheekh maxamuud maxamed shibli oo had iyo jeer nagala qayb qaata barnaamijkan marka xiga waxaan u mahadcelinayaa dhammaan tiimka Somali Channel ugu horeeyay injineer Cabdiraxiin Nuur Iimaan Darbo oo had iyo jeer naga xaqatira dhanka farsamada iyo kaamirada ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan daawadayaasha Somali Channel meel walba ay daafaha caalamka ka joogaan tan intaynu barnaamijkan lamid ay ku kulmi doono waa anigu Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqa iyo sheekh maxamuud maxamed shibli oo idin leh sida iyo nabadgelyo noole kulanta. Assalamu alaykum.